way aan ku bilaabay maanta ciidanka daraawiishta maamulka Jubbaland waxay soo bandhigeen guul taariikhi ah waliba waxaan dhihi karaa guusha maanta ay soo bandhigeen 14 sano guul noocaas oo kale ma gaarin aniga iga qabsada waliba muddo 14 sano ah oo Axmed Madoobe uu meesha fadhiyay guul noocan oo kale taa waxaan u malayn ciidanka daraawiishta Jubbaland ma aysan gaarin sababtoo ah guushan way ka duwan tahay dagaal intii la galay rag la laayay labada dhinac la islaayay dhimashiya dhaawac dhashay waxa way deegaan ama laga qabsaday ama hubbi laga furtay way ka duwan tahay waxa gacanta lagu dhigay warshadii dhanayd ee qarxiyada u sameeynaysa nimankan argagixisada waa warshad waxa la qabtay warshad 9 madax oo miinooyin oo qarxiyo ah ayaa goobta loogu tagay soolaraa loogu tagay hubka noocyadiisa kala duwan baa lagu qabtay ma aha wax oo kaliya waxa weeye warshad yar oo wax macmil ah samaysa ma ah waa 9 madax meeqay ku filay Jubbooyinka dhan qaraxyo loogu talagalay in dadka jooga lagu dhibaateeyo lagu waxyeeleeyo lagu baabi'iyo noloshooda lagu tirtiro ayaa gacanta lagu dhigay horta hambalyan leewan hambalyeynaya ciidanka daraawiishta Jubbaland kuwa nabad sugidda iyo kuwa kale daraawiishtaba iyagoo isku duuban iyo cid walba oo xogta kala qayb qaadatay haday noqdaan walaalaheena dariska aynu nahay ee Kenya iyo haday noqdaan dadka deegaankaba waxaan leeyahay horta hambalyo waad guulaysateen guul baad noo soo hoyseen waan hambalyeynaynaa waan bogaadinaynaa waan waxa weeye waxaan leenahay guulaysta helitaanka xogtan dabcan markii la helayo ciidan sirdoon kaliya ma heli karo dadka deegaanka kaashanayaan dawladaha jaarkay kaashanayaan saaxiibada caawiye kaashanayaan iyaga dhaxdooda dad lagu samaysanaya oo iyaga qayb ka noqonayo waxa weeye lacag lagu bixinaya waqti dheer baa la gelinaya khibrad iyo maskax baa la gelinaya ciyaar xogta noocan lagu heli kara meeshan waa meel muhiimad gaar ah u lahayd kooxdan argagixisada aad bay muhiim ugu tahay sababtoo ah meeshan waxa u yaala wax la bacriminayo wax iyaga ay rabaan inay nolol ku halaagaan inay ummad dhan ku baabiyaan maskax baa u taala meeshan meel ciyaar ma meel la iska heli kara ma meel la iska tagi karana ma waa meel markay boqolaal askari ay ku dhimatoon loo tagi lahaa way laakiin si fudud oo aysan dhimasho kaga bixin xagga ciidanka daraawiishta ayay gacanta ugu dhigeen xaggan kooxdana halaag baa ku dhacay waxa kale oo aanu garan may way ku halaagsaneen si kasto ay noqotaba hambalyo ayaan leenahay guul weyn bay maanta ciidanka daraawiishtu ay halkaas ku soo bandhigeen hawlgaladan waxay si gaar ah uga dhaceen oo aan ku celinaya deegaan ka tirsan Joore oo lagu magacaabo lagta Holwachea lagu magacaabo ayay oo badhaadhe hoos tagta degmada badhaadhe hoos tagta ayay hawlgaladan ka dhaceen hadii ciidanka la taageero oo la dhaqaajiyo ciidanka daraawiishta ee Jubbaland way ku filayeen dhulka Jubbaland inay xoreeyaan laakiin waxa ayaan darraa oo musiibo ah oo ciidankii la degay oo dhibaateeyay oo xiriyo ku ooday oo qabyaaladeeyay oo qurun ku dhaxbeeray hoggaanka Jubbaland baa dhibaatada gaarsiiyay inaan ciidanka Jubbaland maanta ay jubbadii hoose ee madaxtooyada ahayd ay argagixiso kula dagaalamaan oo mararka qaar iyaga inta la soo gaado maalin dhaweyd wixii dhacay degmada badhaadhe Jamaame wixii ka degmada deegaanka ka tirsanaa wixii ka dhacay adogsoonaydeen inay taasi dhacdo Axmed Madoobe ayaa sabab u ah 14 sano Kismaayo la iska fadhiya hawlgal lama gelin 20,000 oo ciidana jooga 20,000 hal maalin baan la qori kara 20 kale dadka reer Jubbaland in dhulkooda loo xoreeyo oo argagixisada lagu la dagaalamo oo laga saaro oo naf iyo dhiigba ay u huraan diyaar bay yihiin laakiin waxa musiibo ku noqday hoggaankii oo ka xumaado wuxuu yiri Axmed Madoobe talada iga baahaysa haddaan Kismaayo dhaafo haddaan dhinac u dhaafo talada iga baahaysa talada iga baahi weliga ma maqashaadu hogaamiye bedelka hogaamiyaasha caalamku ay dhul raadsanayaan oo dad kale ay dhul ku haystaan oo ay dhul raadsanayaan isagu wuxuu leeyahay Jubbaland iskuma keeni karayo oo taladaydu kama wada talin karo haddaan wada qabto oo maxaad rabtaa Kismaayo uma u talin karaa hadda fiiri tusaalayna siinaya gobolka Gado waa xor argagixisa ma haysato meelaha baadiyaha iyo tuulooyinka koreeyta taagayeen degmooyinku waa xor muutago maxaa u diiday
ما انتو ديارات قاعدة هليكوبتر يكون عربتي مالها وجود دو في كلبه وديارات قاعدة نيو من تو هليكوبتر ير شلال كوشبتو دولة كي بصينية مدار وكدجو وعيل وكدجو وبلحة وكدجو وحول لوق كدجو وقرب هاري كدجو وباردير كدجو بلينك حبط كل ده أيو أركيد لا أركيد دوراي مكدجو تدك وين ربانة مو أتجو أفريقيا تمسون جوجاي هال مال المتي مالين وجود وايو عيل واقض كينيا وكدجو وواجي حل بعنده لسوح لي حلقة فرماجة هيدا عيل قالوا لبحي هالكاسو تجي لداهي واجاسو وجود وا وأمركو كذا وجود وابا هجان كبا مركز دad كريجو بلان كحماضي ciidan way haystaan oo dad geesinimo ku astaysan way haystaan oo dhalinyaro dhiiran oo dhulkooda inay u dhintaan rabo way haystaan oo markan xaqiiqda ka hadal way ciidanka marka daraawiishta maamul baa hadda direen uu dhigay Maya Axmed Madow qayb ka dhimay dhalinyarada iyaga istireen ciidanka iyaga istireen taliyaashooda iyaga istireen iyaga waxa weeye mas'uuliyad isa saaray iyaga xilkii dadkooda ka saarnaa gutay hambal yaan lee horta aad iyo aad bay u mahadsanyihiin iyagoo maamulkoodu saad aragtay oo maamul xumo ay hayso oo qabyaalad ciidankii la kala qabyaalada ay ku dhacday oo darajooyin aan helayn oo xuquuq ku filan aan haysanin maanta hadday guusha gaareen waxaan leeyahay hambalyo ciidanka waan bogaadinaynaa guusha maanta ay gaareen guuleysta ayaan leenahay howlgallo badan baa dhacay oo deegaanadii ugu dambeeyay iyagana degmada Badhaadhe ka tirsanaa ee ciidanka daraawiishta Jubbaland iyo kuwa kaleete ee commandoska danam ay wada faliyeen guulo waaweyn baa iyadana laga sooyay jab weyn baa horta kooxda waayihii dambe ku gaaray meesha la yiraahdo gobolka Jubbada Hoose haday noqoto dhanka Badhaadhe iyo haday noqoto dhanka Jamaamaba labadaba dhibaato xooggan baa kooxda gaaray tani inay maanta warshada la helo oo laga qabsaday waa jab kooxda gaaray baa sabab u ah iyaga dhaxdooda naftirkooda markii lagu jabiyay dagaaladii ahliga ay waad way dhacay markii lagu jabiyay waxay sameeyeen iyaga dhaxdoodii baa isku dhacay baa leeyahay iyagii baa hadda isjaajuusaya waxay rabaan kaliya maamul sakumeeyo wax yar dabada ka riixo ciidanka kuwa dhaawacmayna isbitaallo u dira si ay dhiirigelin kuwa nool ay ugu noqoto kuwa nool la xuquuq siiyo oo dhiirigeliyo oo moraalka u dhisa bas ay u baahin inta hadii la heli lahaa Jubbada Hoose oo dhaba maalmo kooban baa lagu qaban lahaa kooxda laga qaban lahaa ku darsaday ciidanka daraawiishta Jubbaland waxay haystaan dawlado darisa oo u jajaban oo diyaar u ah garab istaag oo cidna xataa amar ka sugaynin iyo bariyatoon aan ka sugayn dawladda Kenya oo kale ciidanka commandoska waxa weeye militariga Kenya iyo militariga Ethiopia ba wax amar ay sugahayaan ma jiro maanta hadii la dhaco ciidanka daraawiishta Jubbaland baa dagaal galay waxay diyaar u noqonayaan inay waxa weeye ay ka qayb qaataan oo ay garab istaagaan waad ogsoonayeen dagaalkii ugu dambeeyay diyaaradaha cirka ee Kenya ayaa markiiba la kiciyay arba nig Axmed Madow wax waraba kama isweyninba laakiin waxaan haysan hoggaan ma haysano Madow baa nala degay oo dhulka nala galay oo meel walba nala waxa weeye nacna qabateeyay oo dadkii dhibaateeyay oo ummadii waxa weeye ciidankii xataa bahdilay Madow way hadii Madow maanta laga saari lahaa ciidanka daraawiishta Jubbaland dhulka dhanba way xoran lahayn Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose way xoran lahayn labadaaba baa hadda xorahay way xoran lahayn laakiin waxa yaan daraa inaan uusan u soconin ciidanka iyagu isxil qaamayaan isagoo hadda xamar iska fadhiya bay ciidanka iska dagaal galayaan hal maalina kama hadlayo one day xataa hal daqiiqo xataa ciidankeedii dagaal ku jira ma dhahay si kastoo ay noqotoba maanta guul weyn baa dhacday hambalyaan leenahay waan bogaadinaynaa ciidanka daraawiishta cidii waxyeelay ay kaga soo gaadhay waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu u boogadhayo kii dhintay Ilaahay inuu jannatul firdaws geeyo dadka reer Jubbaland iyo daliya dibadba ku maqanow ciidanka hal la ogaado hogaamin ma haysto ciidanka hal la ogaado